بسم الله مقعي وفاطمة محمود حسن جوجتا قروة أدبان السلام يا وزير قودح سؤاشي ذو waxay tahay wasiir maadaama aan nahay arday dhamaysatay waxbarashadii dugsiga sare doonaysana inay helaan shahaadadoodii saan ognahay in idinkii oo maamul goboleedka Puntland khilaaf ayaa ka jiray shahaadada ardayga sidii sanadkii hore dhacdayba marka maxaa idinka qorshaysan sanadkan mudane wasiir su'aashaas doonaya inaan diga jawaabto waa mahadsantahay Faadum wasiir hay runtii waa ka xumahay in sida wax u dhacaan waxa naga dawladda dhaxadaan nahay aan raali ka nahay ma aha haddana waxaan hubaa in ardada iyo waaridka reer Puntland ay ku qanacsan yihiin go'aanka dawladda dhexe ay arkaan in dawladooda iyo runtii aysan u diyaarsanayn inay walaalahooda wadanka intiisa kale wax la qaybsadaan annaga mabda'ii ahaa imtixaankan shahaadiga mas-uuliyaddiisu saaran tahay dawladda dhexe waxaan shahaado siinaynaa cid kasta oo ka soo qayb gasho ee ku tartanto marnaba ma siinayno shahaado qof aan ka qayb gelin imtixaankaas xaq ma aha mana xaqaysan ku ahayn kii imtixaanka galay in la siiyo shahaado lamida midaan imtixaanka arrintaas macnaheedu ma aha haddii Puntland ay go'aansadaan inay imtixaankooda qaataan inaan annagu ciladaynayno aan diidannahay laakiin waxaanan yeeli karin in aan shahaado siino lamid ah ka aan imtixaanka ka qaadnay oon xaqiijinay imtixaankaana intiisa badan yacni sababta weyn oo loo qaado waxa weeye in la xaqiijiyo qofkan wixii uu soo bartay inuu astaahilay marka Puntland waxay leeyihiin annagu unbaa sheegi karno waxaan soo barnay inay astaahilaan calaaqaadkii iyo waanwaantina hadda sanadkii hore waxbaaba socday hadda waxba ma socdaan sanadkii hore waxaan socotay war aan imtixaanka wada qaadno oo aan saan yeelo oo aan intaan balwaxeeyo oo kan hadda taa xitaa ma socod marka aniga igama muuqato in ardada maantay imtixaanka ku gelaysa Puntland in ay muxuu ahaa shahaado ka heli doonaan lamida wadanka intiisa kale fursadaas hadda way soo dhamaatay hadda imtixaankii Puntland waa la wadaa xataa ma naqaano inta arday yani si official ah uma naqaano si dadban ayaan ognahay inta tirada gelaysa iyo waxay yihiin ku xas laakiin si rasmi oo annaga aan mas'uuliyadda aan garbaha saaranayno uma ogin xitaa maanta adigaas hadda maanta su'aashii weydiinaya inaa arday tahay Puntland ka dhigto klaaskaas imtixaanka galaya inaa tahay xitaa ma naqaan marka ciladaasaa jirto horeyna hadde sanadka horaan faraha looga wada gubtay oo xiisad siyaasadeed dhashay hadda waxay u eg tahay in la kala quustay aad iyo aadaan oga xumahay in yacni Puntland ay siyaasadeeyeen waxbarashadii ayagana waxay idinku eedaynayaan inaad idinku siyaasadayseen waxbarashadii marka sowma habboonayn in mustaqbalka ardayda waxbaranaysa iyo guud ahaanba waxbarashada siyaasadda marka horeba laga fogeeyo aad iyo aad haddaan annaga siyaasadaynay isha macallina ummadda Soomaaliyeed ujeedo garta meel laga mara hadday jirto ardayga Puntland asigoo aan imtixaan gelin shahaadada waxaas ku muteystay hala siiyo haddaad ii sheegi kartay haddaan gar qaadanayo laakiin in ardayga Puntland laga fadli yeelo oo la yiraahdo ardayga kale uu ka mudan yahay waa in la iska siiyaa shahaado asoo imtixaan gelin runtii ihaanay ku tahay ardayga Puntland iyo waalidiinta Puntland taasaana siyaasadahe qof kale war imtixaanka dadka walaalaha la qaybso wixii aad heshane ka qaada meeshaas qof kale qof siyaasadeed wax uma ekaanay kulli aragtideyda haddii ay aragtidooda moogta wax qarsoonba ma aha adigaas maanta dhigi karo warsaa iyagu muuqatee saasi ku astaahilaan laakiin cidda haysa male marka laga soo tago marka shahaadada deeqa waxbarasho buu helayaa wadanka Soomaaliya deeqahaasi waxba kuma yeelanayaan miya ardada Puntland joogta hadda waxay ku imaanaysaa by default waxa waaye haddii aanan aqooninba qofkan inuu yani heerkaas ka gudbay oo saa uga gudbay haddaanan aqoonin yani sidaan shahaado ku siino muxuu ahaa scholarship ma naqan scholarshipka waxaan ku bixinaa merit ardayba ardaygu ka bunda sarreeya ayaan siinaa iyadoo lagu salaynayo maamul goboleedyada marka hadda maamul goboleedka maalan maamul goboleedka intaasoo arday percentagekaas ay imtixaanka baaseen ay scholarshipkana intaa ka helaya haddaan Puntland loo nasbiyeyn karin wadanka intiisa kale يعني هدنا وحلو عنتو وحلا الصيوي مو تازم وعدالة در
marka waxaan u fahmay xiriirka wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka Soomaaliya iyo wasaaradda waxbarashada Puntland inuu gebi ahaanba go'an yahay hadda. waa la dhihi karaa saas maadaama isku wadanan joognaa oo afan ku wada hadalnaa laakiin wax shaqa oo wada shaqeyna oo dowladnimo oo wadaninimo oo naga dhaxayso oo maanta shaqeeyo inaba haddii ay yaraatee ma jirto. waa mahadsan.